ay ku cadayso maxkamadda awoodooda inuu yahay dambiile inaan dhihi karin sharciga iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ku yaalaan sidaas daraadeed ilaa hadeer dadka aan haynaa waa eedeysanayaal warbixintii aan noo helnay oo dadka meesha aan ka qaadanay waxaan ku wadnaa baaris marka horta ahaan waxaan ku sheegi karaa in annagu aan ka xunnahay isla markaana mas'uuliyadda iyo waajibaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed annaga na saaran yahay ilaalintiisa marka falkaas dhacay ka hortagna aysan dhicin oo kiisaskan oo kale way dhici karaan adduunka meel kasta ka dhacaan laakiin waxaan ku guuleysanay dabatag samayno isla markaasna qofkii marxuumka ahaa oo naga tacsiinayna waalidkii iyo dadkii dhalay gabadhaas waxaa lagu magacaabi jiray Xamdi Maxamed Faarax waxay ahayd muwaadiniin Soomaaliyeed xogaha aan helayno waxaa kamid ah inay kamid ahayd ardadii dhawaan dugsiga sare imtixaanaadka dugsiga sare ka soo baxay isla markaana ku guuleystay baaritaan maadaama aad samayseen ma ogaateen sida ay wax u dhaceen والله walaalow horta baarista waa preliminary investigationska ayaan kula wadaagi karaa maxaa yeelay kiisku wali waa pending wuu socdaa kuma boodi karno gabagabada natiijada laakiin waxaan ku sheegi karaa in gabadhaas meydkeeda aan helnay warbixintaana soo gaartay oo ka duulayna ana ka xunnahay in qof muwaadin Soomaaliyeed ay soo gaaraan waxa ay wax la mid ah waxa socota baaristeedii cidii ay ku soo cadaatana ilaahay idinkii hadawaato ma hadeeraata cadaaladda ay mari doonaan tira ahaan inta ay gaarayaan ma noo sheegi kartaa kiiskan dadka aad u qabateen eedeysanayaasha walaalo waa 4 qof 4taas qof aan ku haynaa baaristeeduna way socdaan waana detective investigation waaye dad kala soo geli doona ama dadka hadda ku jira ayaa ka bixi doona qaar kamid ah ay ku cadaan doonta marka ma hor dhici karno kiiska baaristaas socota hadda muwaadin Soomaaliyeed mas'uuliyadiisa sharaftiisa qofka aan falka noocaas ku loo lahayn in aan maanta raahno ma dhici karto in aan raahno dambiile ma dhihi karno sharciga ma loo diiday marka waxay noqon karaan dambiilayaal waxay noqon karaan eedeysanayaal ama dambiilayaal rasmi ah markii la horgeeyo maxkamadda awoodda kaasi wuxuu ahaa